السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku rajaynayaa inaad bashbash iyo barwaaqo caafimaad amni iyo ammaan aad ku sugan tahay meel kasta oo joogto. muuqaalkan isaga ahi wuxuu noqon karaa muuqaal wax ku bara aad wax ka faa'iideysato inuu noloshaada wax ku soo kordhiyo isbedel haba yaraadee xun ku sameeya noloshaada saas uu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa muuqaal aan waxba ka duwanayn boqolaalka video ee habeen iyo maalin aynu ka daawano baraha bulshada si yaro fududna ayar aynu saga kaxayno mar walbana adiga ay ikhtiyaar kale. waxaan idinku baraarujinayaa inaad waqtiga qiimihiisa garataan oo intaad da'yartiin aad ka faa'iidaysataan si markaad gabowdaan aydaan qoomamo u heshin. ninkaasi intuu dhaafay inuu niyad jabo, ninkaasi intuu dhaafay inuu naxo أو welwelo أو niyad jabo أو nolosha ka quusto أو calaacalo أو qaarkiinka fikirka xun inay hoosta iska leeyin deekaa maxaa u yaalo ubaystiri xagay niga taagan tahay ma gaarin xaggaasi billaahi calayka ninkaa ku qaadaa dad inuu dadnimiyo dareen kugu hayo. inkastoo dhibaatooyin fara badan ay ku soo mareen 2020ka haddana si kastaba xaaladaadu ha ahaatee sanadkaas waa ku daayay 2021 way timidee diyaar mawta. waxaa la yidhi doontu markay xeebta ku xidhan tahay waa aamin khatar kuma jirto laakiin arrinkaas looma samaynin waxaa loo sameeyey in ay dhex mushaaxda hireerka waaweyn gudaha fog ee badweynta cabsida badan sidaas ayaad la mid tahay laguma samaynin in aad gacmaha isi saarato in aadan waxba qabanin in aad baqdo isku qalabee geesinimo iyo dhiiranaan kadibna fooda geli hirarka nolosha ee aad ka baqayso. waa sanad cusub iyo bilow cusub waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maxaad ka xaqiijisay sanadkii tegey maya wakhtiga ku luminka jawaabidda su'aashaas balse su'aasha saxda ah ee mudan inaad naftaada weydiisa ayaa ah maxaad ka xaqiijin kartaa sanadkan cusub ma ka dhabayn doontaa riyadaada maxaad doonaysaa inaad ka dhabayso. waxaan haystaa kuub sababood oo ku fadhiyo oo ku noqdo kursigaan kaga soo kacay mar alla marka aad ogaato waxa noloshaada muhiimka u ah iyo sida ay riyadaadu u eg tahay waxaad u baahan tahay inaad wax qabato oo aad dejiso yoolalkaaga kuwa muddada dhaadheer dhexdhexaadka iyo kuwa muddada gaaban. waayo qorshahaaga haddii aanad hadda diyaarsan waxaa hubaal ah inaanu sanadkaa soo socda aan waxba ka duwanaanin sanadkii imikaayna dhaafay iyo kuwii ka sii horreeyey si aad guul u gaadho waad ku khasbantahay inaad qorshe samaysato. dadkuna laba nooc ayuunbay u qaybsamaan qof raje iyo damac leh iyo qof ujeeddo iyo qorshe leh inta badanna waxay wax u hagaagaan qorshaha iyo ujeeddada leh. wuxuu sameeyey ninkaas eeg ninku jisid dhalina intuu ka dallacay inuu noqdo qof niyad jaba ayuu isagii noqday dhiirigeliye iyo guubaabiye caalamiya 66,000 oo qof ayuu ka horramaya uu ku oynayo dhiirigelinaya. maanta addoon lagu maysta matiin addoon meel lagu haysta matiin cid maanta ku weerartay oo hub kugu haysood meel ugu xirxiran tahay ma jirto oon ka ahayn naftaada daciifka kugu jirtaa. gacanteedaan idhaa maxay kuugu taallaa in kaari ku dhacday haddaanad isticmaalayn oo kartidii awooddii ay kuugu taalaanay aanay dee ka shaqaynin maxay kuugu taallamay sidaa nig ujisid kaa maqnaanto oo siday biyuhu bilaa midab bilaa ur bilaa dhadhan u yihiin noloshu yaana idinka noqon bilaa tacab iyo bilaa dadaal. su'aalaha igu badan ee noloshayda la weydiiya waxa weeyaan buuri maxaa kaa farxiya maxaad u faraxdaa why are you always happy waxaan ku idhaha buuri for a lot of reasons for a big reason sababo badan iyo ujeeddo weyn baan u farxaa. sanadkii la soo dhaafay guuldarrasay kuu soo garaacaysa oo marna jilbaha kugu dhigaysa marna suxullada dhulka kugu dhigaysay wuu ku soo dhaafay maanta waxaa la joogaa sanadkii 2021 waa sanadkii cabashadu ay dhammaan lahayd. marka waxaa la dhahaa invisible world iyo physical world adduunya la arkayo iyo adduunyaan la arkayn adduunyada aan la arkayn baa ka awood badan adduunyada la arkayo. haddaad maqasho maalqabeen aqoon-yahan caalim ama cid kastoo nolosha horumar iyo tadawar ka samaysay iskama noqon waxa ay noqdeena waxa ay ku noqdeen ka faa'iidaysiga wakhtiga iyo adeegsiga maskaxda. waxaan rabaa inaan kula wadaago sirta koobaad ee lagu dhiso kalsoonidaada waa ficil
haddaadan ficil lahayn oodan dhaqdhaqaaq lahayn kalsoonidu ma ahan shay dukaanka inta laga soo gato lagugu xirayo ma ahan hadal inta laguu sheego qalbigaaga meel intuu ka taabta ka degaya ma ahan kalsoonidu markaad ficil la timaadid bay ku dhisantaa haddii aadan ficil qaadin oo ficilkaa adigu aadan goonidaada u qaadin oo tallaabada aadan ku keli noqonin kalsoonidaada weligeed ma dhismayso noloshu ma dhammaato balse way isbeddeshaa fursaduhuna ma qarsoomaan balse way dayacmaan toddobada maalmood ee toddobaadka ku jira miyay kaa wada farxinayaan soo maalin kugu adag iyo maalin kuu wanaagsan bay yeelan maayaan sidaanay toddobada maalmood ee toddobaadka ku jiraa kuu wada raalligelinayn ayaanay dadkuna kuu wada raalligelinayne ha u fiirfiirsan haddaad aamintay inaad qof tahay waa tahay helidda waxaad haysatan waxa kaa hor jooga inaad karwaaqsato